madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ay weheliyaan xildhibaan Cabdirashiid Xidig iyo Sheekh Daahir oo kamid ah xubnaha isbeddeldoonka Jubbaland ee heshiiska dhawaan la gaaray dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo xubnaha maanta uu hogaaminayay ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland oo horkacayo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere. Axmed Madoobe ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxa uu halkaasi kula hadlay warbaahinta isagoona sheegay in dowladda Soomaaliya xilligan looga baahan yahay in ay la timaado qorsho wada hadal loola furayo dowlad goboleedka Jubbaland si meesha looga saaro khilaafka curyaamiye wada shaqayntii ka dhaxaysay dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhanka kale waxa isaguna goobta ka hadlay xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo dhankiisa dhawaan heshiis la gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu sheegay in xilligan dowladda dhexe ee Soomaaliya looga baahan yahay in ay dalka ku hogaamiso hanaanka dalka. waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in xilligan ay wada hadal la furto dowlad goboleedka Jubbaland. xubnahan uu Axmed Madoobe maanta warkacayay ayaa dhawaan waxa ay heshiis ku kala saxeedeen magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya, waxaana xubnahan maanta Kismaayo soo gaaray kaliya siyaabo arrimo caafimaad safarkaasi oga baaqday Cabdinaasir Seeraar Maaxa oo isaguna qayb ka ahaa heshiiska dhawaan Axmed Madoobe lagula gaaray magaalada Nairobi. mid ka mid ah xaafadaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa haatan waxaa ka bilowday barakaad u ballaaran iyadoo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadda Kooshin gaar ahaan ku tiiba ay bilaabeen in agabkooda xirtaan si ay ugu badbaadaan halista ka dhalan karta daad xoogan ay ku soo wajahaan magaalada Beledweyne kadib markii dhawaan digriin culus uu bixiyay maamulka gobolka Hiiraan. sidoo kale deegaanada ku tirsan kilinka shaafaamka Soomaaliya Itoobiya codka la wadaago gobolka Hiiraan sida deegaanka Maracad, Gal Cusbo, Mustaciil iyo Qalaafe ayaa la sheegay in markaasi ay jiraan barakaad u ballaaran ay sameeyeen dadka deegaankaasi. qaar ka mid dadka deegaanka oo qadka isgaarsiinta kula xiriirin ayaa waxay ii sheegeen inay arkeen biyo aad u fara badan kuna soo wajahan yihiin dhanka magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. xilli marka la gaaro xilli roobaadka guga ama dayrta ayaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa looga barakacaa fatahaad uu sameeyay webiga Shabeelle. wararka ka imaanaya degmada Baardheere ee gobolka Gado ayaa sheegaya in webiga Jubba uu ku fatahay degmada Baardheere ee gobolka Gado. wararku waxay sheegayaan in biyahaasi ay galeen qaybo badan oo ka mid ah guryo ku yaala degmada Baardheere ee gobolka Gado ayna barakaceen qaar ka mid ah qoysaskii ku noolaa halkaasi. fatahaadda ayaa sidoo kale la sheegay inay saameyn ku yeelatay isku socodka dadka iyo gaadiidka iyadoo ay xidhmeen wadooyinka halbowlaha u ah xaafadaha degmada Baardheere. Buraale Ibraahim Xuseen xogayaha dawladda hoose ee Baardheere ayaa sheegay in xaalad adag ay ka jirto degmada Baardheere ee gobolka Gado. waxa uu sheegay inay sameeyeen tirakoob ah qoysaskii ku barakacay fatahaaddaasi isaga oo sheegay in qoysaskaasi ay gaarayaan 470 qoys. fatahaadda webiga Jubba uu ka geystay degmada Baardheere ayaa imaanaysa xilli qaybo badan oo ka mid ah koonfurta waqooyiga iyo bartamaha Soomaaliya ay ka da'een roobabkii guga. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya bam gacmeed lagu weeraray ciidamada ilaalada wadooyinka oo ku sugnaa isgooska Balaaksi ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. 5 qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay oo 2 ka mid ah dhaawacooda uu halis yahay kuwaas oo weerarka ay waxyeello uu ka soo gaaray. dadka dhaawacmay ayaa sidoo kale waxaa ku jira 2 caruur ah mana jiraan wax khasaare ah oo la sheegay inay soo gaareen ciidamada bam gacmeedka lagu weeraray. qaraxan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli muddooyinkii la soo dhaafay ammaanka magaalada Muqdisho uu ahaa mid aad u wanaagsan hase yeeshee shalay ayay ahayd markii ciidamada ammaanka oo ku sugan isgooska 4 darjiin lagu weeraray bam gacmeed. wararka ka imaanaya magaalada Qardho oo ka tirsan deegaanada maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in dib loo helay dadkii lagu waayay fatahaadii daadadka ahayd ee habeen hore ku dhufatay magaalada Qardho. in ka badan 10 ruux oo lagu waayay daadadka ku rogmaday Qardho ayaa saaki la xaqiijiyay in dhammaantood nolol lagu soo helay isla markaana qoysaskooda dib loogu celiyay. dadka ayaa lagu soo waramaya in habeen hore daadadka roobabka watay ay ku go'doomiyeen xaafado kala duwan oo ka tirsan magaalada Qardho kadib markii eheladoodu ay waayeen deetana ay xiriir la soo sameeyeen xubnaha mas'uuliyiinta gurmadka magaalada Qardho isla markaana baadigoob xoogan loogu galay sidii noloshooda dib loogu soo celin lahaa dadkaasi. waxaase markii dambe dhammaantood laga soo helay goobihii ay ku go'doonsanaayeen iyagoo dib loogu celiyey qoysaskooda oo ku sugan magaalada Qardho.
fatahaadii habeen hore ka dhacday qardho waxaa ku nafwaayey ilaa 6 ruux oo isugu jiray 3 carruur iyo 3 qof oo waaweyn kuwaas oo ahayd midkood haweenay sidoo kale sida ay xaqiijiyeen xubnaha mas'uuliyiinta magaalada qardho sidoo kale waxaa hanti ku beelay boqolaal qoysa oo aan haysan hu iyo hooy midna waxaana imika socda gurmad ballaaran oo loo samaynayo dadka ay saameyntu ka soo gaadhay fatahaadii ku dhufatay magaalada qardho hase yeeshee gurmadkii ugu horreeyey oo ka taga magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa gaaray degmada qardho halkaasoo uu ka socdo gurmadka loo samaynayo dadka waxyeelada ay ka soo gaadhay roobkii xilliga guga 2 ka mid a gaadiidka xamuulka sida islamarkaana raashiin noocyadiisa kala duwan wada iyo agabka aasaasiyaadka u ah nolosha oo laga aruuriyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada boosaaso ayaa gaaray degmada qardho sida ay mas'uuliyiinta xaqiijinayaan gurmadka ka tagay magaalada boosaaso ee gaaray magaaladaasi qardho ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee gaara degmada qardho tan iyo markii habeen hore fatahaadda daadadku ay ku dhufteen ay saamaynta ku yeelateen magaaladaasi waxaana dhinaca kale gurmad laga aruuriyey dadweynaha ku nool magaalada garowe islamarkaana saare gawaarida xamuulka qaadaha ay ku wajahan yihiin magaalada qardho halkaasoo la filayo in xubnaha guddiga ay ku wareejiyaan si loo siiyo dadka ay fatahaadda saamaynta ka soo gaadhay dhanka kalena madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ayaa safar shaqo isagoo ku jooga qardha maanta waxa uu kormeeray xarunta tababarka ciidamada ee xorgoble madaxweyne dani ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta oo tababar uga socday xirada xorgoble wuxuuna kadib warbixin ka dhageystay saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta xarunta madaxweynaha ayaa boogaadiyay doorkii ciidamadu ay ka qaateen badbaadinta shacabka markii xilli habeen ah biyo ay ku rogmadeen magaalada qardha waxaana madaxweynaha min hal darajo uu dalacsiiyey dhammaan ciidamadii ka qayb qaatay howlgalkaasi lagu badbaadinayay shacabka ay daadadku wafdi ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya guddiga qaranka ee kahortaga COVID-19 ee dhaqaatiir ayaa gaaray magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe wafdigaasi waxaa magaalada Jowhar ay gaarsiiyeen shixnad dawooyin ah iyo qalab kale oo ay siday diyaarad isla markaana loogu talagalay in lagu la tacaalo cudurka coronavirus macaawinadaas oo ka timid xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa loogu talagalay in lagu taageero dadaalada lagu yareynayo caabuqa halista ah ee COVID-19 wafdigaasi oo ay magaalada Jowhar ku soo dhaweyn maamulka Hirshabeelle waxa ay muddada ay joogaan halkaasi ay u kurgalayaan sida ay u socdaan dadaalada markaasi looga hortagay faafitaanka cudurka sidan oo kale ayay shalay magaalada Baydhabo diyaarad u geysay agab taasoo ay dowladda Soomaaliya ugu talagashay dowlad goboleedyada dalka